السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeennii weydiiyo culimada oo toddobaadkii mar ay idiin soo tabino taasoo inta badan aan ku faaqidno su'aalaha ay noo soo dirsaan dadweynaha barnaamijkan ku tixan. toddobaadkan barnaamijka waxaa inoogu martiya Sheekh Cali Axmed Maxamed oo loo yaqaano Sheekh Cali Alfiye. barnaamijka sida caadada noo ahaydba waxaanu ku daafuranaynaa darsi diiniya intaana u gudagelin su'aalaha. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله إن كلنا مجلس كانوا كالسون مادنو ayadoo aanu kala faa'iideysanayno wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nakarsiyo bulshadeena iyo dadkeena iyo diinteena wixii naga iskaal gala aanu isweydiino isweydaarsano. marka barnaamijkan aad iyo aad ayuu waxa weeye u fiican yahay waana inaan ka soo qayb galo oo dadka wada ducaada oo khayrka badan leh ay waxa weeye markaas aanu imaadana aad aan ugu faraxsanahay. inkastoo dadka ehelka u ah oo cilmiga iyo aqoonta aanan ka mid ahayna aan ahay dadka hoose oo ardada iyo aan ka mid ahay, haddana waxa weeye wixii qof walba tabartiisa laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha. ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala in la isweydiiyo qofka waxii ka maqan oo diin ahaan uga maqan aakhiradii adduunkiisana waa wax xaq ah, waana amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. ummaddaana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay khayran inay tahay ummadda dadka ugu khayrka badan. waxay ugu khayriyaduna ay ka timid waxa weeye ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar. wax kale ma ahan khayriya cirqiya oo waa u dhasheen ma aha, laakiin waxaa loola jeedaa munkarka ayay reebaan, macruufka iyo wanaaggana ummatul muxamedku way isfaraan. intii marka khayrka lasu sheegayo xumaanta la iska reebayo khayriyadaas way taagan tahay waana baaqi. ilaahay baana mahad iskale naga dhigay ummatul muxamed oo ah ummad khayr badan. wabillahi tawfiiq. waa tahay waqtiga qaaliga Sheekh Cali Alfiye aad maasay waqtiga qaaliga una siiyana aad iyo aad aan uga mahad celinayaa. waxaan markaan u guda galaynaa su'aasha koobaad oo ay soo dirsadeen daawadayaasha markaasi ku taxan barnaamijkan amaba daawada. su-aasha horeysa haddii aan u guda galno Sheekh Cali waxa uu leeyahay daawadahan markaasi jooga South Africa laguna magacaabo Maxamed Yare naag ayaan waxaan ku furay ayuu leeyahay 2 dalaaqo muddo 2 bilood laga joogo. waxaan damcay inaan rajacto iraado laakiin waa iga diiday. marka dalqadii saddexaad ayaan ugu daray ayuu leeyahay. marka cuddada waxa laga qabanayaa 2 dalaaqo hore mise waxa laga qabanayaa dalqadii u dambeysay oo aan siiyo. waa mahadsan yahay Maxamed Yare, waana su'aal qayima oo in la ogaado laga jaahil baxa u baahan. gabadha haddii la furay oo mudallaqa ay ahayd dalqadihiina ay wax u dhimanaayeen, markii dambena iyadoo weli ciddadii ku jirta uu u dhammaystiray, hadda gabadhaasu inay mudallaqa tahay kama baxayso. markii ugu horreysoo la furay oo mudallaqa ay noqotay unbay ciddadeedu ka bilaabanaysaa. hadday bila ku ciddo tirsanayso iyo hadday duhri ku ciddo tirsanaysaba waxa weeye waxaa laga bilaabayaa meeshii ugu horreysay dalaaqa. dalqadda dambe oo gadaal laga soo kordhiyey wixii u dhimanaa ninka unbaa ka dhammaaday, maana waxba kale ma soo kordhin. gabadhu waa mudallaqo. cabdi cawaale oo jooga dalka Kenya waxa uu leeyahay waan idin salaamay waa ka qaadna ayaan leenahay walaal. waxa uu ka mid yahay daawadayaasha markaasi sida gaarka barnaamijkan ugu tixan. sheekha waxaan weydiinaya ayuu leeyahay mandheerta geela ama iyo sidoo kale xameytida ma xalaal ah ayuu leeyahay, diintaasi maxay ka qabtaa, maxaas u daliilay? waa su'aal fiican. madheerta xoolaha iyo xameytida waa laba mas'alo. madheer marka la yiraahdo waxaan aniga u aqaanaa neefka xoolaha marka uu dhalo ilmaha waxa la socda ama ka soo baxa waxaa la yiraahdaa madheertaasu waxay ka mid tahay neefkan xayiga oo nool jus ka soo infisaalay ama ka soo go'ay ka soo baxay. waxaana la yiraahdaa wixii ma qudica can ilxayi fa huwa ka maytati. xayiga ama shayga nool cadka laga jaraa wuxuu la mid yahay shaygii laga soo gooyey markuu qurbaxo wuxuu noqonayo. marka xoolaha waa naqaana hadday baktiyaan oo aan la birayn waa bakti waana xaraam xalaalna ma aha.
ma dheertaan waa sidaas oo kale oo iyaduna xalaal ma aha nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi xadiis uu xaakim wariyey calaa shardi shaykhayn maa qudica can ilxayi fa huwa mayta waa mayta macnaha waxaa loola jeedaa neefkan isagoo nool waxa ka soo go-a hadday ma dheer tahay iyo haddii cad laga jaro ay tahay neefkii oo barida laga gooyay hadday noqoto waxaasu waa mayta baktiyaa lagu xisaabaya haddii uusan ahayn waxa laga soo jaray wixii baktigiisu uu xalaalka ahaa sida malaygii iyo ayixii oo kale hadduusan ahayn wixii ka soo haro oo dhan wixii ka soo infisaala neefkaas oo baktiyey oo kale laga soo qaadaya waana xaaraam mana banaana in la cunaa qaybta labaad oo ah xameetida waxaa la yidhaahdaa horta neefku haddii uu baktiyo ximin walba oo ka mida isaga waaba bakti oo looma dhowaa karo laakiin haddii la bereeyo ilaahay wuxuu leeyahay fadkuruu mima dukira smullaahi calayhi waxaad cuntaan oo macnaha fakuluu mima dukira smullaahi calayhi magaca ilaahay wixii lagu xusay cuna ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka neefkii la bereeyey xibnihiisa iyo cadadkiisa iyo qaybihiisoo dhan wax ka xaaraamuhu ma jiraan waana la cuni karaa baasha la yidhaahdo xameetiduna waxay ka mid tahay hilbaha neefka ayay ka mid tahay laakiin culimada fuqahada way ka hadlaan oo waxay yidhahdaan waxaa jira waxyaabo naftu ay xumaysanayso sida xameetidoo kale sida neefka labka oo kale xaniyihiisoo kale burada oo kale neefo ariga iyo kale ama geela wax buro la yidhaahdaa ka soo baxa naftu way xumaysanaysaa marka in la cunaa waa karaahiyay leeyihiin maadaama naftu ay nacayso oo buradii ama xaniintii orgiga oo kale inaad cunto naftu waxa way kuma qancayso laakiin waa xalaal neefkii la bereeyey wax alla wixii xibnihiisa ama hilbihiisa ka miduhu waxa weeye xalaal waxaana daliil u ah aayadda ilaahay fakuluu mima dukira smullaahi calayhi uu ku yidhi qur-aanka waa sidaas wabilaahi towfiiq waa tahay waa rajaynayaa cabdi cawaale in uu markaasi ka bogsooday su-aashii uu qabay waa markaasi waa inuga mahad celinayaa shiiqa markaasi waktiga gaarka oo ina siiyey su-aasha markaasi xigtay haddii aan u gudan galno waa axmed bila salaad oo markaasi jooga magaalada muqdisho waan idin salaamay ayuu leeyahay adiga shiiqa waa kaa qadna walaal shiiqa waxaan weydiinayaa ayuu leeyahay ma lagu furi karaa dumarka 3 dalqood haddiise markaasi lagu furo xukunkeedu muxuu yahay ayuu leeyahay tafadal shaarifi waa su-aal qayim ah oo aada u wanaagsan in la fahmana u baahan haddii gabadha 3 dalqadood in lagu furo xaaraan ma aha laakiin ninkaasu wuxuu ka leexday dariiqadii fiicnayd oo ah in la kala reebo dalqadaha oo 1 iyo 2 iyo lagu furo addalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ilaahi subxaanahu wa tacaala waana laga fahmayaa dariiqada mufadalada aayaddaas oo ah in la kala reereebo dalqadihii oo 1 mar aan la ridin haddii 1 mar uu rido oo 3daba uu ku furo oo uu israaciyo xaaraan kuma dhicin laakiin dariiqadii fiicnayd iyo habkii wanaagsanaa ayuu ka leexday xukunkuna wuxuu noqonayaa gabadhaasu inay furan tahay 3 dalqadoodna ay ku furan tahay sida arbacatul madaahib iyo culimadu ay qabaan walow ay macnaha waryaalo uu iska jiraano in waxa way dadka qaybo kamidu ay leeyihiin 1 dalqaa dhacayso oo kale laakiin markii arbacatul madaahib iyo culimada islaamka la fiiriyo ra'yigooda raajixa ama meesha u badan yahay waxay tahay xukunku inay gabadhaas furantay 3 dalqadoodna ay ku furantay dariiqada uu marana ay tahay dariiqo markaas laga fiican yahay laakiin xaraam aysan gaarsiisnayn waa sidaas wabilaahi towfiiq su-aasha xigta ee markaan u gudagelaynaa assalaamu calaykum wacalaykum asalaam ayaa leenahay waa shamse maxamed axmed oo joogta magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxay leedahay shiiqa waxa aan weydiinayaa aniga oo gabara ma marsan karaa cillaanka iyo waxyaalaha la isu qurxiyo cillaanka waa su-aal fiican cillaanka dumarka way marsan karaan laakiin waxaa loo kala qaadaa gabadhu haddii nin leedahay oo musawajo ay tahay inay cillaan marsato waa loo sunneeyaa haddii ninkeeda ama zawjkeeda uu jecel yahay uusan dhibsanayn hadday gabadhu hayru musawajo ay tahana way u bannaan tahay inay cillaan marsato laakiin sunno uma aha wabilaahi towfiiq waa tahay shamse waxaan rajaynayaa in ay markaasi su-aasha ay qabtay baahideeda ay daysay isla markaana ay ka bogsatay waa tahay shiiqan waa uga mahad celinaynaa
waktiga oo markaasi inoo furay haddii aan markaasi su-aalaha kusii siqno axmed xarago oo jooga magaalada boosaaso waxa uu leeyahay ma ku dhex weysaysan karaa musqusha ama suuliga waa su-aal fiican waysaqaadka iyo qubaysku qofku haddii qubays waajiba lagu leeyahay oo kale hadda waa ama sunna ama musqusha wuu ku qubaystaa waysaqaadkuna waa sidaas oo kale oo wax maanica ama farqi u dhexeeya lama arko in qofku wayse qaato iyo inuu qubaysto laakiin sida fiican waxay tahay inaan musqul lagu wayse qaadan sababtoo ah waxaa adkaar oo kale inuu bismillaahi raxmaani raxiim uu yiraahdo kale markuu dhameeyo inuu adkaar akhristo kale waxyaabahaas marka sunanta ah oo dhan munaasab ama aha musqusha ama suuliga munaasab ama aha meel daahiro aan musqul ahayn oo adkaarta uu ku akhrisan karo inuu qofku ku wayse qaato ayaa u fiican laakiin hadduu musqusha ku wayse qaato wuu ku wayse qaadan karaa isagoo musqusha ku qubaysto oo kale ayay la mid tahay qubayskaasuna waa u jiraa wabilaahi tawfiiq inuu ka bogsado ayaan rajaynayaa axmed markaasi su-aasha xigta haddii aan sii wada galno faadumo cabdi daahir oo markaasi iyaduna joogta nairobi caasimadda waddanka kenya waxa ay leedahay ma ku ducaysan karaa duca af soomaaliya anigoo ku guda jira salaada gaar ahaan aniga oo sujuudsan waa su-aal fiican ducada waxaa loo qaybinayaa laba qaybood duca oo mansuura oo nabigeena laga soo naqliyey sala allahu calayhi wasalam iyo duca hayru ma'huura oo sida hadda af soomaaliya oo kale ma ku ducaysan karaa iyo duca aan nabiga laga soo naqlin macnaheeda xataa labadaasaa loo kala qaadin culimada shaaficiyada markii la fiiriyo waxay leeyihiin ducadu hadday hayru ma'huuro tahay oo nebiga aan laga soo naqlin bataatanba lalama imaan karo waxaan carabi ahayn oo haddii uu qofka la yimaadana salaada ayaa uga buraysa laakiin ducada ma'huurada oo nabiga laga soo naqliyey haddii qofku uu awood u leeyahay uusan caajis ahayn uu karo hadduu u leexdo luqo kale oo aan carabi ahayn salaada ayaa uga buraysa hadduu caajis yahana wuu ku ducaysan karaa sidaas ayay leeyihiin aqwaasha ku jirta qowlka ugu raajixsan waa midkaas culimada maalikiyadoo kale iyo iyagu waaba diidaano waxay yidhahaan bataatanba waxaan luqal carabiya ahayn salaada dhexdeeda laguma ducaysan karo ayay qabaan laakiin shaaficiyada ayaa soo dhaweeyey waxay leeyihin ducada ma'huurada oo nebiga laga soo naqliyey hadduu qofku ka cajiso carabi uu ku awoodi waayo inuu ku ducaysto wuu ku ducaysan karaa luqo kale markaa wabilaahi tawfiiq waa tahay daawadayaal intaas ayaanu kusii afmeeraynaa barnaamijkeeni weydiiya culimada oo toddobaadkii mar ay idiin soo tabino barnaamijka toddobaadkan waxa ay noogu martirahay sheekh cali axmed maxamed oo loo yaqaano sheekh cali alfiye ahna mudaris markaasi ka tirsan mudarisiinta ugu waaweyn masaajida magaalada muqdisho gaar ahaan masjidu saxaaba daawad haddii aad su-aal qabto committee ahaan noogu soo bixi si ay inoo soo gaarto isla markaana aan jawaabta halkan kuu soo gelino si aysan markaasi jawaabta kuu seegin channelkan ku xirno isla markaana asxaabtaada la wadaag si uu u gaaro barnaamijkan waan rajaynayaa daawadayaal aad u fara badan oo markaasi su-aalo ay ka dhex buuxayeen in ay ka bogsoodeen barnaamijkan xigantan dib ugu kulmi doono oo akhyaarta isku duubanee leh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu